kadib howlgal qorsheysan oo xalay saqdi dhexe ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa isbishalka ee sida gaarka u tababaran ee danab ay ka sameeyeen duleedka deegaanka Toorotorow ee gobolka Shabeellada Hoose ayay ku qaarijiyeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada Al-Shabaab. Howlgalka ujeedkiisu ahaa in la soo ciribtiro horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada Al-Shabaab oo dhibaato baan ku haya shacabka ku dhaqan gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ku dhuumaaleysanayay duleedka deegaankaasi Toorotorow ee gobolka Shabeellada Hoose. howlgalka qorsheysan ayay ciidanka kumaandooska gaar ahaan kuwa isbishalka ah ay ku dileen 8 isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada Al-Shabaab kuwaasi oo ka mid yahay horjooge Al-Shabaab u qaabilsanaa diyaarinta qaraxyada. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Odawa Yuusuf Raage ayaa idaacadda codka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed u sheegay in horjoogayaasha la dilay ay ahaayeen kuwa dhibaato badan ku hayay ummadda Soomaaliyeed isla markaana ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska ay soo afjareen.